Barasabka gobolka Hawd Ibrahim Xaaji Xasan Cali ayaa maanta deeq biyo ka kooban 22 booyadood ka gudoomay ururka halgarad oo ah urur dhalinyaro oo iskood isku xilqaamay isla markaasina ka damqaday dadkooda abaaraysan. Deeqdan biyaha ayaa la gaarsiiyay bulshada abaaruhu halakeeyeen ee ku dhaqan gobolka Hawd iyo sidoo kale dadka soo guurtada ee ka soo hayaamay deegaanada kala duwan ee Soomaaliland. munaasabad kooban oo loo qabtay kala gudoonka deeqdan ayagu horeyn waxa halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyay xubno ku hadlayay magaca ururka halgarad waxayna faahfaahin ka bixiyeen deeqdan ay maanta soo gaarsiiyeen gobolka Hawd sidoo kale waxa ay baaq qayladana u direen cid kasta oo gurmad ka geysan karta gurmadka abaaraha waxaana hadalladoodii ka mid ahaa alxamdulillah anagoo ka soo kicitnay warkayo xataa wadamo aan dalka dibadiisa ka tirsan alxamdulillah waxaanu jeclaysanay inaanu dadkeedii kala qayb qaadano dhibaatada abaaraha ilaahay baa faydi kara laakiin intii oo awooda inaanu kala qayb qaadano wixii awoodayada ah waxaan baaq u dirayaa dheer dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada gobolka Hawd inay u soo gurmadaan walaalahooda tabaalaysan maanta maalintii la eeganayay maaha jiifka aynu ka kacno walaana dhalinyarada waayeelkii qalqaasha gaar ahaan dumarka iyo dhalinyarada waxaan leeyahay jiifka aynu ka kacno oo aynu caawino dadkeena tabaalaysan ee aynu arkayno waxa isaguna halkaasi ka hadlay barasabka gobolka Hawd Ibrahim Xaaji Cali Xasan waxaanu dhalinyarada ururka halgarad uga mahadnaqay deeqdan ay soo gaarsiiyeen gobolka Hawd marka hore hablaha oo dhan baan u dirayaa mahadnaqa marlabaadka hablahan halgarad si gaar ah u mahadcelinaya waa la shaxay markiiba iyagu hablu nala joogo iminka 22 booyadood marka waxaan rajaynaynaa insha Allah qolada booyadaha laftooda waan mahadcelinaya waayo culays badan baan u saaray waxaan u siinay iminka intaasi may gaadheen 22 booyadood shidaalka iyo masaariiftina waan siinay waan naga aqbaleen aad bay u mahadsiiyeen waxaan rajaynaa ilaahay ma ajri xasanaadka wax ka siiyo maamulka kale ee shaqeynaya ee taagan aad baan ugu mahadcelinayaa nagu arki doontaan wax meesha ka taagan ilaahay waxaan ka baryaynaa inta inaga qaboojo baahida biyuhu hadday sii doonto loo dhimanayaa tii kalena way barbar socotaa wax allaale wixii noo gudmayna aad baan ugu mahadcelinayaa caadiya dadka halkan jooga waa dadka soo dhaweynaya waa dad wixii la keenana ka mahadnaqaya inta kale noo soo socotayna soo gaari kari weydana waxaan leenahay ilaahay ajir ha siiyo maxamed Jiciiro Axmed TV qaranka Soomaaliland balli gubadle